السلام عليكم. soo dhawaada walaalaha sharafta badan. waa xaaskii ugu dambeeyay ee uu guursaday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. magaceeduna waa Ummuna Maymunah bintul Harith. Maymuna hooyadeed waxaa la oran jiray Hinda bintu Auf bin Zuhair. waxay ahayd haweeneydii ugu wanaagsan ee sodoh noqoto. Maymuna hooyadeed waxay sodoh u ahayd Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq Allah ka raali noqdee, Hamza ibn Abdul Muttalib Allah ka raali noqdee, Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ka raali noqdo, iyo Ja'far bin Abi Talib iyo Ali bin Abi Talib oo walaalo ahaay. Maymuna walaalaheed ay dhashay hooyadeed iyo aabaheed waxay kala ahaayeen Ummul Fadli oo ahayd xaaskii Abbas bin Abdul Muttalib. sidoo kale walaalaheed ay dhaleen hooyadeed iyo aabaheed waxaa ka mid ahaay Lubaabatu Suqra oo ahayd hooyadii Khalid bin Walid. walaalaheed ay hooyadeed bas dhashayna waxay kala ahaayeen Zaynab bintu Khusayma al-Hilaliya oo ahayd xaaskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam, iyo Asmaa bintu Umays oo ahayd xaaskii Ja'far bin Abi Talib. kadib waxaa guursaday Asmaa Abi Bakr, kadibna waxaa guursaday Ali. waxaa kaloo ahaay walaalaheed Salma bintu Umays oo ahayd xaaskii geesigii Hamza ibn Abdul Muttalib. Ummul Mu'miniin Maymunah bintul Harith Allah ka raali noqdee waxay nafteeda u hibeysay Nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaana arinteeday ku soo degtay aayad Qur'aan ah. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. نبيك صلى الله عليه وسلم ayaa guursaday Maymunah bintul Harith asagoo gudanayay cumrada sanadkii 7 ee hijriyada. waxay dhimatay Ummul Mu'miniin Allah ka raali noqdee markay ka soo laabatay xajka, waxaana ka mid ahay dadkii ku tukaday wiilka ay habaryarta u ahayd ee dhalay walaasheed, laguna magacaabi jiray Cabdullaahi ibnu Cabbaas. Caaisha Ummul Mu'miniin waxay tidhi, Maymuna way naga tagtay oo way dhimatay. wallaahi waxay ahayd midda noogu alla cabsida badan, uguna rixim xariiris badan. Allah ka raali noqdo Ummul Mu'miniin Maymunah bintul Harith. nabigeena Muhammadni Allah ka raali noqdo, dhammaan muslimiintana Allah ka raali noqdo. والسلام عليكم. السلام عليكم. soo dhawaada walaalaha sharafta badan. waa xaaskii ugu dambeeyay ee uu guursaday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. magaceeduna waa Ummuna Maymunah bintul Harith. Maymuna hooyadeed waxaa la oran jiray Hinda bintu Auf bin Zuhair. waxay ahayd haweeneydii ugu wanaagsan ee sodoh noqoto. Maymuna hooyadeed waxay sodoh u ahayd Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
abuubakar sidiiq allaha ka raali noqdee xamza ibnu cabdilmudallib allaha ka raali noqdee cabbaas ibnu cabdilmudallib allaha ka raali noqdo iyo jacfar binu abi daalib iyo cali bin abi daalib oo walaalo ahaay maymuuna walaalaheed ay dhashay hooyadeed iyo aabbaheed waxay kala ahaayeen ummulfadli oo ahayd xaaskii cabbaas binu cabdilmudallib sidoo kale walaalaheed ay dhaleen hooyadeed iyo aabbaheed waxaa ka mid ahaay lubaabatu suqraa oo ahayd hooyadii khaalid binu waliid walaalaheed ay hooyadeed bas dhashayna waxay kala ahaayeen zaynab bintu khusayma alhilaaliya oo ahayd xaaskii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo asmaa bintu cumays oo ahayd xaaskii jacfar binu abi daalib kadib waxaa guursaday asmaa abibakar kadibna waxaa guursaday cali waxaa kaloo ahaay walaalaheed salmaa bintu cumays oo ahayd xaaskii geesigii xamza ibnu cabdilmudallib ummulmu'miniin maymuunah bintulxaaris allaha ka raali noqdee waxay nafteeda u hibaysay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaana arrinteeday ku soo degtay aayad qur'aan ah qaala tacaalaa wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiy nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa guursaday maymuunah bintulxaaris asagoo gudanayay cumrada sanadkii 7 ee hijriyada waxay dhimatay ummulmu'miniin allaha ka raali noqdee markay ka soo laabatay xajka waxaana ka mid ahay dadkii ku tukaday wiilka ay habaryarta u ahayd ee dhalay walaasheed laguna magacaabi jiray cabdullaahi ibnu cabbaas caaisha ummulmu'miniin waxay tidhi maymuuna way naga tagtay oo way dhimatay wallaahi waxay ahayd midda noogu alla cabsida badan uguna rixim xariiris badan allaha ka raali noqdo ummulmu'miniin maymuunah bintulxaaris nebigeenna muxamedni allaha ka raali noqdo dhammaan muslimiintana allaha ka raali noqdo wasalaamu calaykum assalaamu calaykum soo dhowaada walaalaha sharafta badan waa xaaskii ugu dambeeyey ee uu guursaday nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam magaceeduna waa ummunaa maymuunah bintulxaaris maymuuna hooyadeed waxaa la oran jiray hinda bintu cawf binu suhayr waxay ahayd haweenaydii ugu wanaagsan ee sodoh noqoto maymuuna hooyadeed waxay sodoh u ahayd nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam abuubakar sidiiq allaha ka raali noqdee xamza ibnu cabdilmudallib allaha ka raali noqdee cabbaas ibnu cabdilmudallib allaha ka raali noqdo iyo jacfar binu abi daalib iyo cali bin abi daalib oo walaalo ahaay maymuuna walaalaheed ay dhashay hooyadeed iyo aabbaheed waxay kala ahaayeen ummulfadli oo ahayd xaaskii cabbaas binu cabdilmudallib sidoo kale walaalaheed ay dhaleen hooyadeed iyo aabbaheed waxaa ka mid ahaay
lubaabatu suqra oo ahayd